السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رير سوماليان وإذن سلامي waxaan rajaynayaa inaa nabad qab intiina waagu bariyo ku soo toosteen intiina hurdaana nabad qab ku hurdaan. Waxaan doonayaa inaan wax yar ku darsado arrintii ayaa ilaa shalay socota oo ka soo yeedhay gabadh la yiraahdo Rooda Cabdi Muuse baan filayaa urur leh oo tiri Hargeysa dad baa marti ku ah. waxa aad horta gabadhaasi maaha qofkii koowaad ee waxa yiri qofkii koowaad ee yiraahda in Hargeysa reer hebel baale iyo annagaale iyo waxa noocaas dadka ku hadla runtii way badan yihiin iyadu kali kuma aha hase ahaatee inta qabta bay ku jirtaa inay meesha ay gooni u leeday xusbina waxaana jiro urban leeyahayo macnaheedu waxay qayb ka ahaanaya siyaasiyiinta Soomaaliland. taasi waxay horta muujinaysaa guud ahaan reer Soomaaliland inaynan dawladnimada fahansanayn. dawladnimadu waa wax wada lahaanshiyo. haddii aan waxba la wada lahayn waxba dawladnimo jirto. caasimadda Hargeysa cid laga leeyahay ma jirto. reerihiina yiraahdo waanu leenay waxa aan leedin ma jirto. waa caasimadii ummadda reer Soomaaliland. inanka Boorama jooga ka Laascaanood jooga ka Burco jooga waa caasimadoodii la idinku dhaarto oo liqa oo garawsada oo joojiya waxbaanu leenay. Hargeysa afar buureed dhexdood bay ku taalaayeen waxay wax ku tahay ummadda reer Soomaaliland. haddii laga guuro maxay noqonaysaa? dadka reer bariga loo booteeyo ayaa Hargeysa shiday. Hargeysa caasimad ka dhigay. tuulo yar bay ahayd 91 ka hor tuulo yar bay ahayd. haddii maanta maalmaha marka doorashooyinka la gelayo maxaan ku dhahay la yiraahdo reer walba halkuu kaar qof walba kaarka ka qaatay ka soo codeeyo Hargeysa waxay noqotaa banaan. marka maxaa ku samayn lahayd meesha horta ya qolihiina sheegta meeshan haddii reer barigu idinka dareero iyo reer galbeedkuba maxaa ku samayn leedin? caqligu ha shaqeeyo. meel la kala leeyahay ma jirto. dawladna lagu ahaan maayo halka aniga leh iyo xaafid heble anaa leh tuule hebel anaa leh wada heble anaa leh waxaan anaa leh. waay marka maxaad ummadda kale maxaa loo wada dhimanayay? maxaa loo dagaalamay? maxaa loo halgamay? rag aad imaka ku tilmaantaan inay Hargeysa qaarkiin leedin Hargeysa uma idaan dhalan ayaa ku dhintay Hargeysa. maxay u dhimanayeen? ay reerahoodii uga dhimanayeen. kuwa reer Hargeysa baa Burco ku dhintay maxay u dhimanayeen haddii Burco laga sheeganayo? marka caqligu ha shaqeeyo. dadkan waaweyn maxaan ku dhahay odayaasha sheegta ee siyaasiyiinta sheegtana waxa loo baahan yahay inay wax fahmaan oo dawladnimadu waxay tahay fahmaan. ay dawladnimadu tahay wax la wada leeyahay in la wada ilaashado. Hargeysa haddaad keligaa sheegato oo cadow biri soo baxo de keligaa difaac baan ku odhanaynaa. ma fahanteen? Burco hadday cid gaar sheegato de waxa la leeyahay ciddii gaarka ay difaac waa taasi. marka adeerayaal caruuraa been ha u sheegina. dadka been ha u sheegina. reer bari habar jeclaa loo bootaynay baan u malaynayaa inkastoo marka qaar habar jecliyo habar yoonista bariba la isku qaado. laakiin adeer iyagaa leh. halkay doonaan bay kaga kaajayaan. halkay doonaan bay degayaan. wax la kala leeyahay ma jirto. dawladnimo lama yidhaa halkaa anaale waa ceeb weeye. bal midda labaad nasiib darrada idin haysata meel walba waa la idinku shiraya. والله جبهدا ليدنكو اوغيا gudihiina laga dhex shaqaysanayaa. guhareeri baa laga shaqaysanayaa. gaarisa la idinku shirayaa. jigjiga la idinku shirayaa. garowa la idinku shirayaa. muqdisho la idinku shirayaa. meel kasta la idinku shirayaa. idina idinki baa isu shiraya. ole meel heblaaya anaaliya Hargeysa anaaliya Burco anaale. inanka reer bariya inanka reer galbeed haddaad Hargeysa ka sheegato yaa difaaci doona Hargeysa markaa.
yaase magaalo ka dhigay hargeysa yaase ka dhigi kara ma afarta inta yare u dhalataa ayaa caasimad ka dhigi karta war ilaahay waxaan ka yaabayaa wacnihii dadka sidaad u socotaan iyo siday ummadda kale u socotay ma islaha ummaddii ayagiibaa isku foororiseen caruurtiibaa wax u sheegteen caruuribaa mid walba tidhahdeen halkan adigaa leh halkan cidi kaama laha idinkunbaa kala harkaysaysta war hargeysa la kala leeyay burca la kala leeyay boorama la kala leeyay mitoona ma jirto hargeysa inanka reer booramaale inanka reer burcaale inanka reer baraale cid kastaa leh waa caasimadii dalka weeye miyirsada qof walowba halkay binadaadu ka taagantay xitaa binadaadu halkay ka taagantay maliida dowladda cashuurkaa qaado oo leh binadaadu halkay ka taagantuun baad leeday gurigaaga ayaad leeday inta kugu wareegsan shaqo kuma lihid magaalooyin reera leeyin ma jirto qofna deegaankiisa laga rari maayo laakiin ummaddu dalka way wada leeday burca haddii la wada dego iyo hargeysa haddii la wada dego iyo boorama haddii la wada dego dalka waa la wada dowladnimadu waa taa weeye ma aha halkaasaan leeyo bakbak marka rag iyo dumarba dadka waaweyn ee ku hanjaba hargeysa annagaa leh waxaa leediin ma jirto dalkan adeer waa la wada leeyahay hargeysina waa caasimad afka ha iska xumaynina hargeysa la idinka tegayo iyo hargeysa laga tegayo iyo hargeysa cid laga leeyay midna ma jiree afka unbaa iska xumaynaysaan iyo kuwii reer hargeysa waxaa yidhi iyo qolaa waxaa tidhi unba keenaysaane wax allaala iyo wax maxaan ku idhahdaa ayay kale oo bedelaysaan ma jirto cid ka guuraysa hargeysa ma jirto reer burco reer barina hargeysa ayagaa leh ayagaa u dhintay ayagaa u dagaalamay ayagaa xoreeyey xaq bay u leeyihin halkay downaan ku kaajaan marka afka ha iska xumayna xishooda reer hargeysa u xishooda dowladnimadana fahma dowladnimadu waa wax la wada leeyahay dowlad lagu noqdaa ee waxaa fadagaar u sheegtaan maxaan ku idhahdaa ayay ma jirto ilaa iyo maalin muddo dad baa lahaa hargeysa annagaa leh maxay bedeleen hargeysa anaa leh haddaan afka ka idhaa maanta o dhan hargeysa anaa leh hargeysa anaa leh waxalla waxay bedelaysa ma jirto sababtoo cid ka guuraysa ma jirto waxa keliya aad shamayne aad kordhinaysa waa caloolxuma iyo dadka caloolxuma isu gelisaa iyo qabyaalad iyo qurun war sida ummadda u shiraysa idinku shiraysa u shira oo cadowga u shira oo cadowga iska celiya oo howlaha idinku soo maqane is abaabula oo dowladda la shaqeeya oo ciidamada la shaqeeya oo maxaan ku idhahdaa sida ummadda u dhaqmayso u dhaqma war assalaamu calaykum wabarakaatu waa idin salaamaya khayr iyo baraka isu rajaynayna